ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo caalamka meelo fara badan si toos ah munaasabadaasi uga socoteen fanaaniinta qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna soo bandhigay ruwaayado kala duwan haddana waxaan si toos ah daawada lagu gudbi doonaa khudbadda mas'uuliyiinta kala duwan oo xarunta taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland si toos ah uga imanaysa waxaana intaasi aad kala socon doontaan si toos oo TV qaranka Soomaaliland igu soo gudbinayo khudbadda madaxweynaha taliyayaasha iyo mas'uuliyiinta kale ayaan u gudbi doonaa waxaan u yeedhay makana taliyaha guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyagaas Nuux Ismaaciil Taani khudbaddii ugu tala galay munaasabadda 27 guurada aasaaskii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taliya ku soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدحوينها جمهورية سوماليلاند وضنا مصبح عبدي حبناها قولها وزيرك وزارتك عشاندك حبناها قولها وزير ردا قدومياشا حساب تقرنك حبناها wakiilada iyo guurtida ee xubnaha xafladda jooga warasaabada iyo meerada gobolada madaxda hay'adaha safaaradaha Itoobiya Djibouti Turki iyo Taiwan xubnaha Ingiriiska dawladda Ingiriiska ee nagala shaqeeya wasaaradda gaashaandhigga hay'adda Hello Trust taliyayaasha ciidamada xubnaha hay'adaha kale qaranka iyo saraakiisha askarta ee ciidamada qaranka qalabka sidee kala duwan iyo marti sharafka kale ee nagala soo qayb gashay xafladan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta kadib mudanayaal maanta waxaan u dalbaadeganaa 27 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku beegan 2 bisha 2 2021 mudanayaal haddaan wax yar ka sheekeeyo markii aan xorriyaddeedna qaadanay 1960kii Soomaaliland waxay lahayd ciidamo amniya oo military police iyo asluub leh ciidamada qaran markaa militariga ah
waxa la oran jiray Somaliland Scout waxay ahaayeen ciidamo dhisan oo inkastoo qalabkoodu aanu aad u wanaagsanayn aqoontooda xagga fartana aanay ku wanaagsanayn laakiinse waxay ahaayeen niman caafimaad qaba oo maskax furan oo jirkoodu dhisan yahay oo wixii loo sheegay qabsan kara ayay ahaayeen qolada koonfureed may lahayn ciidan military waxay lahayd booliis midowgeeni wuxuu keenay inay ciidamada booliiska ka soo wareejaan ciidamadeennina halkan laga qaado deetana ciidamadeenu macallimiin u noqdaan oo ay tababaraan ilaa 6 sano 7 sano ugu horeeyay waxa barayay ciidamadii Somaliland Scout looran jiray ee halkan laga bedelay oo macallimiin oo ahaa maadaama booliisku markii hore aan heerkaan gaarsiisanayn waxa kale oo sameeyeen ina bixinta lagu isticmaalo ee gaardiga amba waxyaabaha kale waxa uu sameeyay ciidamadii halkan ka tagay ee Somaliland Scout markii aan isku darsanay muddo yar kadib dee waa layna liqay saraakiishii baa cidla loo tuuray oo aan askartii baa laga maarmay wax badan baa inagu dhacay markay burburtay dawladdii kadib markii jabhadihii xoreyntu ay ka guuleysteen dawladdii Maxamed Siyaad Barre waxa la burburay ciidankii markaas samaysnaa oo xoogga dalka Soomaaliyeed loo oran jiray waxaanu inagu la soo noqonay markaa burburkii kadib gobonnimadeennii oo dib u soo ceshanay markii jabhadii SNM ay ku guuleysatay xorradii dalka ay ka guuleysatay ciidamadii Maxamed Siyaad Barre ee aagan joogay waxa bilaamay ilaa waxaan institution oo dhisnaa ma jirin ciidamadii soo dagaalamay inay mid walba gobolkooda tagaan oo ciidan beeleed ay samaysnaan oo control badan la helo oo ay foodo noqoto ayay noqotay xaaladda koo lagu jiro foodada waxa boorama lagu qartay shirkii lagu dhisayay dawladdii labaad ee Somaliland yeelato oo madax ka noqday 1993 madaxna ka noqotay marxuum الله نحريستي محمد حاج إبراهيم عقال مدحوين حقينا كان نقضي مدن عبد الرحمن وعلي وزير الداخل هنا أو كان نقضي مدحوينها الجمهورية الصومالية هذا الشغل مسبح عبدي دولة دي بهالكان لقو صور دي سي مركز هالكان تمد waxay noqotay in dawladii loo helo la wadanka fawdu ku jiray in amni la helo dawladdaasi taageera oo dawladdaasi ku dhisanto waxa la go'aansaday in ciidan la abuuro ciidanka marka la abuuraya waxa weeyaan ciidan beeladeedashii gobolada dhanka wada joogay oo beelaha dhan wada lahaayeen waxa la go'aansaday marka 500 askari oo beelaha ka kooban oo ku salaysan beel kastaaba intay guurtida ku leedahay loogu saleeyay in la abuuro isku geynta ciidamadaasi dhibaato badan bay lahayd khatar badan bay ahayd waxa garanaya maanta madaxweynaha hadda jooga maxamed Muuse Biixi Cabdi iyo Maxamed Kaahin oo halka sii jooga oo raggii ciidamadana soo hawlgeliyay ahaa ayaa garanaya dhibta ay lahayd markaasi in ciidamadaasi la isku keeno waa loo dhabar adeegay dhib kasta ka timaadee waxa la isku keenay 500 ee ka kooban Somaliland oo dhan ee guurtida ku salaysan sidaas uu 1994 ku abuurantay guutadii koowaad ee ciidanka qaranka oo ay ku xigtay isna guutadii labaad mudanayaal intaa wixii ka dambeeya markay guutadaasi dhisantay waxa lagu dadaalay in ciidamadii markaa la dhisay la tayeeyo oo la tababaro ciidamadii markaa la dhisay si loo tabeeyo waxa la abuuray dugsiyo tababar waxa ugu horeeyay dugsiga Gorya Cawl waxa aniga oo markaa ahaa taliyaha qaybta 31 waxaan damcay guutada in labada guuto aan gelin halka way qaadan waayeen waan la rafaadnay
waayo waxay arkeen maahina wax ku cusub weeye walaalo iyo kadib iyo wax ay dirqi nooga yeeleen waxaan geynaa Gorayo Cawl kala badh baa la waayay oo ka baxay waayo waxaan wax ku cusub weeye sidaas labadii guutay ugu horeeyay aan tababar ku gelinay intii ka dambaysana markii ka dambaysay caadi bay noqotay mudanayaal markuu ciidanka qaranku soo dhismay waxa qorshaha la dhigtay waxa weeye sidii ciidanka loo tayeyn lahaa ee dugsiyada loo gelin lahaa sidii dawladnimada loo gaarsiin lahaa gobolada sidii ciidan xuduudda qaranka loo sugi lahaa saddexdaa qorsho afartaa qorsho ayaa ciidanka qaranku dhigtay waxaan u malaynayaa maanta afartii qorshaba boqolkiiba 95 inay fuleen baan hadda aanu aaminsanahay waajibaadka ciidanka qaranku waxa weeye ilaalinta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland madax bannaanideeda dalkeega iyo dawladnimadeeda waxa kale waajibkayga ka mid ah inaan taageero ciidamada kale amniga markay amni sugayaan hadday noqo baahdaan inaan gacan siino waxa kale waajiba inaan dadweynaha u taageero markay xaalado lama filaan yimaadaan inaan dadweynaha gacan siino waxay ka tahay waajibaadka ciidanka qaranka dhinaca tababarka mudane madaxweyne sanadkan soo dhaafnay dugsiga Sheekh iyo dugsiga Darweyde 2 jeer baan dhibo ka saaray waxa kale oo dugsiga Cabdilaahi Askar aan ka saaray oo adiguba u xidhay 156 sarakaal oo kulliyadda saraakiisha oo kuwii shaqada qaranka annaga nagaga soo hagay ciidamada qalabka sidoo dhan hadday booliis tahay hadday military tahay hadday usluub tahay hadday ciidanka badda tahayba oo maanta ku dhex jira ciidamada qaranka ciidamada qalabka sida ka mid ah waxa kale oo hadda dugsiga Darweyne ku jira dhibo cusub isna waxa kale oo kulliyadda Cabdilaahi Askar ku jira 20 sarkaal oo 2 sano soo dhameystay Ethiopia haddana sanad ku jira waxla oo aan doonay inaan dhaqan baro oo iyaguna saraakiil infantry waliba ah waxa kale oo dugsiga Haragwaafi ku jira 172 saraakiil xigeen oo ciidamada dhammaan gobolada ka soo ururnay oo muddo 6 bilooda tababar barna maadaama saraakiil xigeenku yihiin laf dhabarkii ciidanka inaan halka tababar ku siino 6 bilood tababarka dibadda waxa tababar sanadkan noo soo aanu diray horena uu joogay 17 sarkaal iyo saraakiil xigeen waxa noo soo noqday soo dhameystay hadda 34 waxa hadda noogu maqan tababarkaasi 37 oo la dhakhtarro injineero iyo wax la mid ah oo koorsooyin dhaadheer iyo farsamo yaqaan 3 sano baranaya qalabka kala duwan ee ciidamada dhinaca dhismaha mudane madaxweyne Birjeex waxaanu ka raynay amba qaybta Soomaaliyeed halkay degan tahay waxaanu ka rarnay 1500 oo qoys oo xerada ciidanka deganaa waxaan ugu mahadnaqayaa wasiirka dakhliga wasiirka hawlaha guud meeyarka iyo meeyarka xigeenka Hargeysa oo arintaa xoog saaray oo aad wax noola qabtay maantana waa lagu guuleystay 1500 in laga saaro oo madaxweyne gurihii badhkooda aan daayac tiray kuwa kalena aan daayac tiri doono hadda lagu jiro waxaan ka saaray qaybta Burco 270 qoys waxaan ka dhisnay 3 guri oo cusub oo miiska saraakiisha ee Burco ku kordhinay aan doonana inaan sidaan miiskan hadda ugu bixinay Ibrahim Koobur Mujaahid Ibrahim Koobur baan u bixinay miiska saraakiisha sidii aan aduguna nafartay ka Burcana magac kale aan siin doonaa
oo aan laga tashado ayaan siin doonaa annagu magac baan yaan samaysanay laakiinse waan talanka yaad ka bixin doontaa waxa kaloo marjeex ka dhinay 3 guri oo mid halkii gaaska yahay iyo 2 guri oo kalena oo madaxweyne maanta soo aragtay waxaan ceeri gaabo ka dhisnay guri dabaqa oo xafiisyo iyo hurdaba nooca maadaama ay dheer tahay annaan markaan kormeer u tagnaa annaan geli karayn hotel inaan samaysano meel saldhiga sidaan gooja cadaba uga samaysanay meel saldhiga oo waxaa soo arkay wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga soo arkay inaan meel kastaba ku yeelno saldhig aan galno madaxweyne waxaan daayactir ku samaynay ballaaran xeryaha ciidamada burco halkan ilaa fooqan hadda aan joogno daayactir ballaaran baan ku samaynay dhinaca howlgalka madaxweyne waxaan ka howlgalnay adha cadeele iyo jiidali shaqaaqooyinkii ka dhacay ee beelaha dhexdooda oo muddo 3 bilood 4 bilood nagu qaatay ciidanka qaranku isaga kala badbaadiyay dadkii halkaa joogay waxaana noogu yimid odayaashii iyo wasiiradii oo howlgalkaasi iyaguna markii dambe gacan naga siiyay markaan kala badbaadinay madaxweyne iyo mudanayaal waxaan qayb weyn ka qaadanay diiwaangelintii hadda dhacday ilaa 8 guuto oo ciidamada qaranka ayaa ka qayb galay diiwaangelintii marka laga reebo wixii intaan u kabnay booliiska ee ka dhinaatay goboladan gudaha laakiin bari guudooyinka bariga oo dhan 8 guuta ka howlgalay si nabad leh ayaanay ku dhamaatay oo ilaahayna guulna ku nagu siiyay dhinaca gaadiidka madaxweyne adoo gacanna siiyay in badan sanadkan gaadiid badan baan soo galay gaadiidka iyagii horena ku culus iyo ku fududba daayactir baan ku samaynay hadiyo goor lama heli karo wax cusub hadaan waxaaga aduu tashiilan oo hagaajisan wax cusub waligaa ma heli karto dawrshada ma haysan marka wixii aan haysanay aba meesha loogu yimid intaan heli karayna waan daayactiray marka daayactir fiican baa sanadkan noo qarsoomay waxa kale oo rajaynaa sanadkan inuu gaadiid badan isna oo miisaanada noogu jira inuu noo yimaado ayaan rajaynaynaa insha Allah caafimaadka madaxweyne intii aad aduu noo kaabtay mooyaane annaga laftayo 16 saraakiil iyo askar iskugu jirta ayaan u diray dibadda Itoobiya haato amba Djibouti haatee yaan cusbitaalada dibadda u tago oo inoo dheer tahay cusbitaalada private-ka intaan geeyno oo naan ku darin aad baan noogu badantay ciidanka qaranku kuma koobna uun xadadkii waajibaadkooda intaasoo maahine waxaanu xiriir badan wada leenahay booliiska oo markay amniga timaado ka wada shaqayno waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ciidamada qaranka meel kasta ay joogaanba waxaan ilaahay uga rajaynayaa sanadkiisa iyagii xaasaskoogaba inay bashbash iyo barwaaqo ay ku gaadhaan insha Allah ta'ala waxaan halkan uga mahad celinayaa wasaaradda maaliyadda hadday wasiirka tahay hadday xisaabiyaha tahay iyo gudoomiyaha bangiga hadday tahay aad baan uga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa meeyarka iyo meerka xigeenka caasimadda Hargeysa oo iyaguna hawl weyn la qabtay iyo wasiirka hawlaha guud oo isna raridaasi qayb weyn naqla qaatay waxa aan ammaan gaara aan u jeedinaya oo aan iloobi karayn maareeyaha wakaaladda biyaha oo dooxa oo jarayay amba goynayay xirada birjeex usbuucaas oo dhan nagula jiray hawl adag annagoon shidaal siin annagoo wax kale qaban isaga laftiisu iyo injineeradiisu iyo qalabkiisa ka shaqeynayeen oo mid aan hilmaami karina oo mudan madaxweyne ninkaas uu istaahilo
in bilad qaran la siiyo hawlaha sida uu qabanayo daayada cadnimada kulli anagu waan siin doonaa laakiin say aan doonayo waxaan aad idin mahad celinayaa soo imaanka aad timaadeen xafladan waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga waxa kale oo ku dareemada madaxweynuhu waan ka gaagaxay waxa weeyaan madaxweynuhu munaasabadan wuxuu noo dalacsiyay saraakiil 826 sarkaala oo ciidanka qaranka ah waxa kale oo madaxweynuhu noo dalacsiyay ilaa 5400 oo saraakiil xigeen iyo askar u dalacaysay inuu darajadu hayo darajada ku xigta intaasina madaxweynaha noogu deeqay salaam waanu maatay madaxweynaha الحمد لله رب العالمين مدحوينها جمهورية سومالان أهنا تليها جودة عيدمة جمهورية سومالان حسبية قرنكا قلها وزيرة تليها عيدك قرنكا تليها شكل دوان عيدمة سراكيشا سراكي حجينكا ألف ليدا دبليدا برصابك قبل كمرود الشاح ما يركحين كمجالة هرجيسا دمان مرت الشرف تانك صوك شوحكم سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحوينه مدن يالي مروين waxaan noo sharaf ah inaan nagala soo qayb gasheen xuska munaasabada sanad guuradii 27aad ee asaaska ciidan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne mudan yaaliye marwooyin waxaan marnaba la hilmaami karin in 27 sanadood xubno badan oo kamid ah ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay nafahooda u hureen difaaca dalkooda iyo dadkooda waxaan Ilaahay uga baryaynaa jannooyinkiisa inuu ku arsaaqo ehelkii ay ka baxeen lana inuu samariyo iimaan ka siiyo sidoo kale waxaan Allah uga baryaynaa intii ku dhaawacantay difaaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu caafimaad degdeg ah ee basiyo madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaad la socotaa mabaadi'da iyo waajibaadka ciidanka qaranka marka ugu horeysa waxaa tilmaamay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka kale ee dalka u yaala ciidanka qaranku wuxuu xil saaran yahay ilaalinta difaaca madaxbanaanida dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ciidanka qaranku 27 sanadood iyagoo gudanaya waajibaadkooda waxay ahaayeen kuwo ku astaysan nafhurid guulo istaba joog ah ilaalinta iyo difaaca madaxbanaanida dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxa farxadii ah in ciidanka qaranku ay xaqiijiyeen hadafyo ku xusan qorshaha horumarinta qaranka ee labaad tusaale ahaan tababarada sida ku cad qorshaha horumarinta qaranka si loo dhimo shaqo la'aanta dhalinyarada waa in la hawlgeliyo xuduudda iyo caqliga daayarta iyadoo laga duulayo aragtida madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxay ciidanka qaranku xaqiijiyeen in markii ugu horeysay ay isku filnaansho ka gaadheen tababarida heerka sarkaalnimo oo markii hore dalka dibadiisa loogu bixi jiray xuskan munaasabadan sanad guurada 27aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku xusan tahay in saraakiishii soo baxay ay hawl galeen oo ka kala tirsan yihiin ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin ugu dambeyntii munaasabada sanad guurada 27aad ee aasaaska ciidan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo wareegay waxaan halkan hambalyo uga dirayaa taliyaha ciidan qaranka sareeyaasha saraakiisha sarsare saraakiisha hoose saraakiil xigeenka alifleyda dableyda iyo xaasaskooda anoo leh sanad guuro wanaagsan ha noolaato Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne waxaan halkan kugu soo dhaweynaynaa oo ka codsanaynaa inaad khudbadaada iyo awaamirtaada aad ugu tala gashay sanad guurada 27aad ee asaaska ciidan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad noo soo jeediso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay qof waliba darajada uu mudan yahay iyo xilka uu sida ayaan ku salaamaya oo ku soo dhaweynaya marka u horeysa waxaan hambalyo u diraynaa dhammaan qaranka oo dhan guud ahaan ciidamada qaranka sida oo dhan gaar ahaan ciidanka qaranka
oo maanta aynu joogno xafladoodii 7labaatanaad aasaaskii ciidanka qaranka waxaanu u dareynaa ammaan iyo bogaadin dhammaan dableyda saraakiil xigeenka saraakiisha iyo generaalada iyo xaasaskoodaba qaran ahaan waa u mahadnaqaynaa abaalka ummadda ogolana waa u haynaa waananu u ducaynaynaa sanadkiisa in ilaahay barwaaqo iyo horumar noo gaarsiiya dhammaantood maanta aada ugu dheelaan maayo ciidanka qaranka taariikh ahaan iyo howlo u galo waayo saacaddii u dambeysay intuunbaa laga hadlayay ilaa sheekhii qur-aanka akhriyey ilaa fanaanintii ilaa wasiirka aada iyo aad baa maanta la isu taagay howlaha ciidanka qaranku qabto iyo wuxuu inaga mudan yahay waxaan soo ku darayaa in badan waxaa la ysku raacaa oo la yidhaahdaa ciidanka qaranka iyo ciidamada oo dhammi abaalka qaranka u galaan dal kasta ha ahaadeen lama gudi karo waa dhab waayo qof naftiisa huray wax loogu abaalgudo oo naf loo huro laakiin abaalkooda kolba in baa la gudaa markaa maanta waxaan leedahay shacabka somalilan dhammaantii meelu joogaba maanta abaalkii a u gasheen iyo hashii a u hayseen sanadaha waxaan leeyahay in badan oo tallaabooyin horla ah ayuu abaalkii soo celiyey abaalku ma aha lacag abaalku ma aha adduun abaalku waxa weeye waxay aa garateen ee isu xil saarteen haddaa ciidamadoo dhanba tihiin ee ahaa qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ammaana oo nabada sidii loo heli lahaa ayaanu nafta u huraynaa dadka badan maanta qaranku dhammaantii wuxuu qaatay inuu tallaabadiinnii qaato oo isaguna nafta huro kow waxaynu ku jirnay waan maanta ku jiraa sanadkan maanta iyo kii ka horreeyaba oo ilaahay mahdiya somalilan oo taladiinnii qaadatay oo khilaafkii dhammaysay oo dhammaan u midowday horumarinta iyo nabadda dalka waxaa kaloo guulabaada in dhammaan eedda o dhan la saaran siyaasiyiinta gaar ahaan xisbiyadii siyaasiyiintu inay u midoobeen horumarinta qaranka iyo nabadda oo ay ka saareen wax alliyo wixii xanaf iyo duurduur iyo hadal qalacan ahaa siyaasadda oo maanta 10kii bilood oo u dambeeyey gaar ahaan iyaga oo midaysan ay danta qaranka meel uga soo wada jeedeen oon hal deeqaafa laga maqal iyana waa ilaahay mahadi waxaanu ku bogaadinaynaa gaar ahaan xisbiyada mucaaridka iyo dadweynaha taageera inay u arkeen mucaaridnimada inay noqoto daldhis weliba waxay dareenna ay dulqaad ku daraan si aynuga gudubno carqalada badan iyo cadow badan oo ina hortaagan dasteed biloodka imika ku dhow xisbiyadu waxay ku wada saxeexdeen in ay u midoobaan sidii dalka hawsha ay u hayaan ee ah siyaasad nabadeed wax wada dhisa isqadarin ah lagu bilaabo in loo qorsheeyo waktigii lagu geli lahaa doorashooyinka qaranka ee isku sidka dowladnimadu waxay ka dhisantaa waa golayaasha sharci dejinta dadka la dooranayo hadday noqon waayaan dadka dooranaya qaar isu caloolsan xisbiye isu caloolsan qarannimadu u muuqato meel wax ka wada arkaya dadweyne u arka qofkay dooranayaan inuu dalka wax u tari karo haddii aan labadaa la helin wixii aad beertay wanaagsanaan maayo oo dadkaad hadhow ta doorataa ma wanaagsanaanayo maanta waxaynu marakanahay in xisbiyadii iyo golayaashii sharci dejinta oo kuwii laga saarayay golaha ee maanta xilka dhigala lahaa iyaga oo in badan fadhiyey inay maanta arrintaa isku wada raaceen medhalkeediina maanta uu joogo waxaan idinku bishaaraynayaa qaranka somalilan mid dibad joogiyo mid wada joogaba inay guurtidii maanta go-aamiyeen in doorashada la qabto waktigii uu soo jeediyey guddiga doorashooyinku 31 May waa mahad ilaahay waxaynu ka bogaadinaynaa xubnaha golaha guurtida iyo guddoomiyaashoodu inay tallaabadaa wanaagsan maanta qaadeen oo ay tahay bedela xeerkii ay go-aamiseen oo soo dedejiya waktigii maadaama ay xisbiyadii iyo qarankii iyo xukuumaddii iyo guddiga doorashoodu diyaar yihiin waa waxa ilaahay lagu mahadiyaa
وأركيسان دولة هرين حكي عارف ماشي نكون والله وأركيسان إنك لما ما اعتراف سنة وأركيسان واللي نودر دار وريا ودقارة ما يستان بالين هذا وأركتان أو حلينه هذا واضد سكوب غيري أو هشيز ما هو كالقوي هذا هو الصومال الآن ما أنت وحن رجع هورهنا إن الصومال الآن مدودي وهوش أنو صوب لوني midnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aynu soo wadnay gunaanadkeedii iyo kubadii goolkii u dambeeyay ay gurtu ku laagtay oo shabaqa ku hubsatay oo arkaysa walaalayaal Soomaaliya dadda waa isku xignaa waa Soomaali waa muslim dhibaatada gaadha weyn damqaysaa وأدعينا وحكر وقريه وحكر وترك الرمانة أنا قلت لنا رفنا هذاين وإيطال وين هاي أو يجونا أي قرن هاي وحين قلنا هاي وهالك يكفي كريان سكت ورا فكر هايين تذكر يا دولة دول ما أنت تبع دول يا وحترك ذلك وقوله وقالها بينه عن أدي وحرنا هاي ما له رد خدمة هاي إدي يقول هذا نايو مسلم كا سومالي دا إنه هبري هبرو قرينه oo ugu dambeeyay kuwa shalay hotel Afrika lagu laayay oo ugu dambeeyay general galaan oo shakhsiyan aad iyo aad u aqaanay oo oday Soomaaliyeed oo waliba qadiyada Soomaaliya dadka xogaalka u ah waxay ku fadhiyaan garanaya ah aad iyo aad ugu tacsiiraya qoyskiisa iyo dadkiisa iyo inta kala taqaanada walaalayaal maanta waxaan leenahay oo Ilaahay nagu soo beegay oo Ilaahay uga mahadnaqnaa iyada oo dadka oo dhamay inta midna ay soo qabsanaa hawsha ciidina dawlad iyo jibcid quruba ka dhaxaysa midna aanay uranayn anaga ku taageeray haday dhaqaale tahay haday dibashiise beela tahay haday xisaab siyaasi heshiise tahay haday golayaashii oo iyagu sharciyadiisa u sameeyay tahay waxa Ilaahay lagu mahadiyaa oo madeero u mahadnaqayna oo kayariye kayma loogu mahadnaqaya sheekh iyo shariif wiil iyo gabadh odayo dhalinyaro iyo shaqooyinka kala duwanba in ay ummadii Soomaaliyeed maanta Ilaahay tallaabada waafajiyay ciidamada qarankana waxa uu guura waxa naftiina u hurtay hada ciidanka qaranka tiin hada bariis tihiin hada sirdoon tihiin hada ciidamada badda tihiin hada dabdabiska habeen walba ka sulgiye tihiin hada immigration Soomaaliya tihiin hadii ku criminalska iyo maxaabiista dhaqan wanaag ku soo celiye tihiin idinkana maanta waxa ku gamaaysan in dadkiin idin la qaado tallaabadii oo maanta ummadda halka amaraysa doorashooyinka waa inay wax noo taraan inay wax yeelaan maaha doorashooyinka waa inuu horumarka qaadna doorashooyinku maaha inaynu ku culowno oo marka wax la dooranayana aynu xanaf abuurno waxaanu niri aynu doorano oo degmo walba soo dooro dadka qaranka ku matalaya degmooyinka gaarsiino gobolada oo dhaafin 3 degmo laga soo dooranaya waxa la soo dooran doonaa 280 mudane oo fartoodu noqon doonta sharci aad ku dhaqanto xilkaas maanta yuu saaray wuxuu saaray degmo waliba inay qaranka u keento nin wuxuu qof wuxuu tara rag iyo dumarba iyaguna ay keenaan qof xil gudan kara maanta xisbi idinma yeerinayo xukuumadda idinma yeerinayso ciideedu kuma qasbayso qof wal oo talada wax ka galayo oo soo xildhibaan soo xurayo aakhiro waxa lagu weydiin doonaa مسؤولية القاضي قارن كم كان سعيد هجامين لهيد إن الضاعت كتوقف كاسي في آخرة وقارن كمدو حتى رينويه آخرة كسارن تهيد دم بجاسه هذا قارن كأصوح وشلو من الوقت هاي إنه هديمه وكانيو أما أنا حركة كبيحكرين قف وحضورنا يا الله لمن والقضاء أديبيسه وإن نقطة قفك أدورنس هذا وتقارن كان شرعي وده تريه يا آيه وكترنا أيه يا وحى أدورنا يا إن نقطة مد إفكين يا آخرين لو ونكسر ومدنا وتركنا وهو شاق مكره يا إنه عنان مانتا يا عنان دون قفك ورو وما تبلله هذا أتصارته قف أنا حركة كبيحكرين yaad canaan doontaa aakhira maxaad kaga jawaabi doontaa ummada goorno maxaad u jawaabi doontaa taasi waa xilka maanta saaran degmooyinka cidda ka soo xuraysa dadka iyo qofka dooranaya waxa loo baahan yahay qabtaan
dadka xulaya qoladii imika halkan riwaayadda masaajilaa dhigaysa waxay idhahdeen dooran mayna waxna doonaya nin meeshaa iska joogaan u eelayna war dee waa dhaqa wanaagsan buu ahay bil wada xilka noo qaban karaya kaaloo noo qabo iyo iga daa 60kii bay noogu dambeysay foodka intaa waxaan leeyahay dadka maanta soo xoraya iyo dadka wax dooranaya mas-uuliyiinta xisbiyada iyo kaadirkooda iyo ragga kaambeynka galaya ee doorashada u tartamaya anigu waxaan qabaa maanta inay doorashada iskaba dhan tahay 90% kaambeynka u dheey waayo waxaynu geynay doorashadii degmooyinka halkii u hooseysay degmo waliba cidday soo xushay ka fiirstay way keentay wax la isu eriyada iyo wax la isu xigtaa ma taal degmooyinkii baa laga soo codaynaya gobollada waa la yaqaana waxaan leeyahay xisbiyada iyo dadka mas-uuliyadda haya waxayna saaran marka ay doorashada soo gabagaboobayso dabcan maanta waxaa tartamaya 991 qof baa tartamaya waxaa dhici doona 2 meelood marka 3 meelood qabiil laba hadhaya waa dabcan waa bini'aadmiga mas-uuliyadda xisbiyada xukuumadda waxgaradka hadduu madax dhaqameed yahay hadduu sheekh yahay hadduu ganacsade waxayna saaran inaynu doorashada ku ilaalino nabadgelyo iyo amni cadowgeenu hadduu tii hore ku quustay iminka soo waday oo taa maanta ay burtu gaadho dambayso cadowgeenu wuxuu ku dadaalayaa doorashada natiijadeeda inuu khilaaf adag ka abuuro walaalayaal dhibaatada ay leedahay doorashada markay dhammaatay dhibaatooyin ka soo baxa qoladii Mareykanka adduunka ugu xoog weynaadeen ahayd 200 sano doorasho wada wixii ka dhacay waa arkaysay inay ku dhinteen oo gurigooda loogu dhacay oo ay ku khalkhaleen qoladii Mareykanka ahayd adduunka anaga ugu xoog weyn waa arkaysay oo awood oo sheeganay inagu awoodana hanaawata iimaanka iyo ilaahay iskaashigiisa iyo ummadeena aaminsan oo wanaag jecel inaga xoogeenu waa ka qof walba shaqo kasta hay ama geel raac ama badka kalumayso ama kuuri ahaw ama professor jaamacadooda ahaw ama taajir milyaneer lacag haysta ahaw waa inaad noqotaa samawade booliis ah oo amniga ilaaliya waa inaad noqotaa xaakim garqaadano hebelod qaldantay joog waa inaad noqotaa nin dhimbiisha dalka markay doosho qabto halkeeda ku qabto waxay nagu haray haddaynu Soomaaliland nahay inaynu doorashooyinka inagoo wada jira oo cadawgeenu badan yahay oo dhaqaalaheenu badan hayn aynu ku dhamayno nabadgeliyo kii soo baxaba waa inankeeni kii yimaadaaba waa inankeeni waxay la matoohayn inama kubadooda ciyaaray oo garoonka baxay garoonka qabsaday waxaan ku adkeenayaa intaas aynu ugu hadlay anagu haddaanu xisbiyada nahay go'aan baanu gaadhnay waxaanu samaysanaynaa xeerka anshax waxaanu qori doonaa ilaa ay dhammaato sida la yidhi loo kala baxay anaga hogaamintaasana saaran idina furintaadi saaran haddaad dadweynaha tihiin da' kastoo tihiin iyo qof kastoo tihiin taa intaasaa kaga hadhayaa waxaan ka hadlayaa qodobka maanta adduunyada Somaliland oonay caalamka itiraafsanayn Somaliland oonay dowladda toos u xusin Somaliland oo ilaahay aaminsan isku tashatay dhibaatooyinka jira ee adduunka maanta maraya ilaahay weyn laga maray xanuunka la covid oo laga qayliyay ilaahay saf mareen khafiif inooga dhigay abaariya ay axbaa jiray wali waanu ka ladanahay inkastoo jiilaalkii laba bilood inooga hadhay waa fudud yahay jiilaalkeenu waa ilaahay mahadi khilaafaadka siyaasiga ah iyo dagaalada iyo colaadaha geeska Afrika ka aloosan ee nagu xeeranna ilaahay wuu inaga nabadgeliyay waxaanu u baahanahay inaynu qaadano aqliga ah yaa wax la qabsada dadweynaha Somaliland waxaan leeyahay aynu ka baxno waa la caawinayaa iyo cid baan qaylo u dirsanayaa iyo na soo gaaray ereyga la yiraahdaa wuxuu noo horseedayaa goonnimo iyo hanyari iyo aaminaad inaan ilaahay aaminin waxaad maqlaysaa wax ka soo dhacaa waxaan weydiisanahay caalamka dawladdeena la soo gaaro ilaahum bayna soo gaari karaa waligeed ba weyn noolay abaara ka adag bayna soo mari jiray dhibaatooyinka badan bayna soo maray waalidiin waxaanu kaga bixi jiray isku kalsoonaanta iyo inaga
oo intaynu ku dhacno boorka ka kacno iska jabno dhaqaaqno hubasi arsalayno walaalayaal abaari dhacay 4 sano ka hor dadkeennii goobta ahaa ee gacan hoorsiga ka xishoo jiray ka faani jiray ee hadduu cayroobo xoog si tagi jiray meel maraba ee dhexda xidhan jiray ee isaga oo gabadha iyo odaygaba iyagoo laga yaabaa inaan laba cisho wax cunin ka xishoo jiray waa qatanay reerka martiyaa ee la oran jiray warninka ishiisa wallahi noo shaqo weyn kii oran jiray maanta wuxuu marayaa qofku isaga oo waxaysta inuu baryada badiyo qaylo badiyo maxaan loo sidaa maxaa idin wax noo sii waayay waa la dejiyay dadkii bacba meel lagu dhisay banaana $80 baa waa la siinaya barsiyada dowladda qoyska la sii xagga u soconaya hamad dambe ay xoolo ku dhaqdaan ma hayaan tacab wax qarasho ma hayaan waa dhaqan guur waa burburin qoys Soomaaliland saamay ahaan jiray kuma naas oo korma kasoo laacay ka anoogay daadeedo waanu ka qabayeen cid walba haddii abar ragul ilaahay baa keenay inagu aan iska tashano hal isu xoorogoy waajibku waa wuxuu saaray hawsha inay ka qayb galaan dadka dhibaatada ku dhacayso waa dadka ilaahay lacagta siiyay ee tujaarta ah ee businessmanka waayo tujaarteena qaarkood sakadoodu maanta rijada dhan bay ka saari kartaa faqriga oo inta gaalada soo yeesay in ka badan bixin kara ma aha in lacagta bixiyo sakada ay ku leedahay diinta oo kaliya ayaa gobollo dhan ka saari karta waxa ay nagu gubaysanayaan haydayno taliya halkaana waxaa la ku noqon dadkeenu iimaankii aan lahayn iyo qabkeennii iyo inaynaan nin faranjiya iyo mid carbeetoona midna waxba waqoonin aynu soo celino oo caqliga 30 sano dambe inagu batay ee abaryada iyo inaan liidano iyo inaan wax qabsan kareynin halaga baxo ilaahayna yeynaan ku gafin waayo waxaanu nahay dalka la hubo ee intii nimca ahayd ee adduunka la siiyay roob iyo xoolo petrol oo la hubo ceelasheenu inuu baahan yahay hawl garaaro qura oo wada ogtihiin oo doqonimadeena iyo iskaashi la'aanteenu hayso inaynu qoon aynu soo baxo waxaynu hubnaa inaad dhammaantii ka wareysaan in dahab aan la qodin banaanka laga helo oo la hubo dahabka ku jira haddii aynu ilaaha la qodo innaga mooyaan geeska Afrika dhan dhaqaalis u jiray oo maxaynu u qodan lahayn oo maxaynu u dhaqaajin lahayn doqonimadeena iyo kala qobnaanteena inaan isku aamino qura ku xirantay waxaan leenahay badda ugu dheer oo waxaan dowladda kala soo bixi karo madaxda hadduu xisbi yahay iyo hadduu janan yahay iyo hadduu wasiir hadduu madaxweyne leeyahay iyo hadduu sheekh yahay waxa laga rabaa inuu dadka waxa toosan iyo wadada u sheego laakiin hadday qaadan waayaan madaxdu ee damale dadweynaha leh annagu sidoo ilaahay faray ee iska aragnay baanu idin sheegaynaa oo war hal qaato haddii diidaan idinka halkaas dhigay waxaan ku soo gabagabeynayaa maanta Soomaaliland waxay joogtaa farxad laba arrimood oo taariikheedu maanta goobta ugu dambaal degan midowga sard gurada ciidamada qaranka waajibkooda guntay oo dalkii nabadiisa xasiliyay oo qarankii magaciisa sharaf u yeelay midna waa golayaashii sharci dejinta iyo xisbiyadii qaranka iyo guddiga doorashada iyo dadweynaha oo dhan oo markii u horeysay doorashadii ku heshiyay in hore loo soo dhigo oo iyagoo isku duuban dhammaantood maanta ay guurtiina u saxday sharciga u dambeeyay lagu galaad doorashada 13 ilaahay waxa ka rajeenayay noqoto doorasho khayr leh ilaahay waxa ka rajeenayay nabad kaga baxno ilaahay waxa ka rajeenayay xanaf iyo cay iyo isjiid iyo forxba aan yeelan ilaahay waxa ka rajeenayay dadka faraya inaan siday ahaan jirtay doorashooyinka hore go'aan wax ka bedelo dhaqaale la baabinayo oo qaad malaayiin lagu cunaayo muxuu taraya inaga u baahan kiibka u baahan waxaanu dhan waxaanu ku dhamaynaa petrol campaign qof waliba gaaro ereeya waa la soo duqeynaya shidaalka iyo dayactirka cid baa qaatay loo gudbinaa waa lacag naga baxda wax kale inoo qaban lahayn hiftanka iyo iscayga walaaltinimo inagoo wada walaalaa oo isu seediya oo wada xidoor isbacay karin bar iscay weerar joojina ilaahay doorashada ugu mid khayr qabta aynu diyaar garowno dhamaanteen wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal barnaamijkan oo si toos ah diga soo gudbinaynay xarunta taliska guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland oo munaasabada 27aad ay ka socotay fanaaniinta qaranka Soomaaliland min aad ugu mahadcelinaa oo barnaamijkan qayb ka ahaa
dhammaantiinba ka soo qaybgalayaasheegana aad baynu ugu mahadcelinaynaa haddii alla yidhaahdo barnaamijkan si toosa ayaa telefishinka qaranka somalilan kala socoteen intaan isugu iman doonno munaasabadda dambe oo markaasi xilligan oo kale haddii alla yidhaahdo isla noqon doonta oo munaasabadda dambe ciidamada qaranka somalilan loo qabanayo waxaan aad ugu mahadcelinayaa farsamo yaqaanada sida tooska halkan barnaamijka idiga soo gudbinayay oo cabdi cumar jibriil oo dhinaca kamaradaha ah waxaa sidoo kamarada joogay cabdicasiis cali nuur baa joogay waxaa sidoo kale kamarada joogay si toosa cabdicasiis mursal iyo injineer maxamed gaabane cali caano dhame oo ah agaasime ku-xigeenka tv-ga si toosa noola joogay maxamed xawaadle gaabane axmed jaamac sucaad xagaa waxaa joogay tiim fara badan oo wasaaradda warfaafinta ka socday oo dhammaantoodba uu ka mid yahay guuleedyara ka mid yahay dhammaanta intaynu barnaamijkan oo kale isugu iman doonno waxaan leenahay meel kastoo aad joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta jiro kalama